بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وقتك كوبا دراديد إن شاء الله تعالى سكوبا بانو تلمامي دونا عنوانك كصابسا إدارة الوقت وكما دعنا وانت ولا لدسوق بيين waqtigan ama casrigan dabaynu joogno siba reer galbeedka ay madan ba aragteen qoraallo aad u tiro badan oo lagu tilmaamayo idaarat alwaqt ama maamulka waqtiga bal qaarkood ay ka mid yihiin bestseller bookska ama mabaycaadka ugu waaweyn ee dunida lagu kala gatay bookska si guud baan markaa isaga dul mari doonaa anigoo inta badan qaban doona kitaabkii sunnadu waxay yiraahdeen hadal tirada reer galbeedka waxaan rajaynayaa intay tilmaameen oo quraan iyo xadiis aan akhriyo walidaalika waan ka maarmi doonaa inaan wax badan maraajicdooda tilmaamo waqtigu guud ahaan wuxuu ka mid yahay saddexda mawrid ama saddexda hantiyood ee ugu waaweyn ee ummada haysato waxay yidhahdaan xadaaraadka bini aadamku waa saddex shay sida la isula falgeliya bay yidhahdaan waa alwaqt والأرض والإنسان ووقته يقف بنا آدم يدل سفلسين شكل الشيء يا حضارات كلا تلمامة واحد هذا صدح ذا الشيء وواصلة وما ولما وقتك أنت أي كفا إيديسته أيكو حرين يهور مركز يا البحر مدد يدد مدد يشريتان كيدي يحوق يدبا markaynu quraanka dib u eegnana ahamiyada waqtigu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan buu tilmaamay walidaalika bay culimadu waxay yiraahdaan waxyaabaha rabbi ku dhaarta waa tilmaam laynoo tilmaamayo shaygan weynidiisa quraankana waxyaabaha waqtiga ku saabsan meelo badan baa Ilaahay ku dhaartay wal fajr walayaalin 'ashr wal layli idha 'asasa was-subhi idha tanaffas والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى يعني النصوص آدو بدن قرآن وما لنت يهبينك أما قبل لك كم مدى لغو دارنا يا ما عصر قدر لغو دارنا يا قرآن كتاه لو حاصل من واحد تلمام يا وقت جايه قيمة أولية واحد هذا وقت وهنتك لو كجديسين وحكجديسين كو ومورد محدد بين هذا وهنتيجو أن قف كستو بني آدم والدنيا كرشوجا أفريلا تنصعد ضم هيستا إن الله قبض مايو هذي سنوات كنا رشة هنا إن جو أنبض هيستا متكنت النول يمد لحنا النول با وقت جو أنبض لاذي واحد هذا هو مورد أن تخزين كأقبلين ما كيت سمو وهنتيجا aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yiraahdaan laakiin waqtigu kaba mid ah waxa kaydka gala 24 saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yiraahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaabo aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la deynsan karaa waxa kale oo dhan bay yiraahdaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo إنه وهم تدا بدن لساعد مهل كرد هذا أفريلا تنك ساعد أدو هستا غيري دنا ساعد دبلوما ديجي خرو وقتي سكور دمانة يا ساد رددو حيل هذا وقته ومورد محددة وان جلين كيد مقاله لما قدن كرو بدل مقاله واتكو قصبنت إن تصرف ده بيلا ده هاي قيمه سنوحهم بكوكر ده بيلا ينسيد اللوجة فايديستو وقتها قيمهيس وحكو كرنا استغلاله سيدا دوغا فايديسته ساعد قيمة له هي ساعد عن قيمة لهين لبدا بوات سو مريسا هدي قودهان لاغانا بيدهدان ومدة مجهولة انت الدنيا دا تشوغيسو صدر هذا وحيان قفك بني آدم كاي هانتida dhabta oo haysta waa inta uu jirayo hantida dhabta aad leedahay waa inta uu jiro ورأس المال الحقيقي قفك بني آدم كايستو
imaam alxasan albasri raxmatullaahi calayh ayaa waxaa laga sheegaa inuu odhan jiray ya bna aadam inamaa anta ayaam kulamaa dahaba yowmun dahaba bacduk wareer nebi aadamow maalmuun baa tahay buu leeyahy maalin markay kaa tagtaba qayb adiga ka mida baa tagtay idan cimriga la sheegayo iyo waxaynu haysanno waa secondiskaas secondisku adiga qiimo kuuma leh laakiin nolosha marka la xisaabanayo mar buu jajabku qiimo leeyahy qoladan orda maxay kala dheereeyaan koon xufta carara 9 waa secondis wax ka yar ayaa qiimo u sameeyey idan ثانية أما second wax ka yar ayaa one lagu galaa ama two lagu galaa ama jaayisad lagu helaa ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa haddaba waqtigu qofka bini aadamka ahi waa waqtigaa waxaana cajiiba waqtigan aynu hadda joogno reer galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha kusii dhawaadaba inuu farxo birthday-gu waa maxay badh baad cimrigii tuurtay soo maaha xagga xabaasha markaad usii dhawaataba miyaad farxi waxqabadkuuma farxaysid waxaad intaajada dhalisoo kale ma jiro waa mujarad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha kusii dhawaatay weeyaan waqtiga caynkaa lihi ee sidaa qiimaha u leh ka faa'iidaysigiisu wuxuu ku xidhan yahay bay yidhaahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto haddii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ahi waxa uu fahmayaa garanaya sida uga faa'iidaysanayo dadka badhna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan wuxuu leeyahay wax allaaliya waxaan qabtaan garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwaraa waa maxay rabbi irjicuun ilaahu iceli waa kan aad imika garan la'day si aad tidhaahdo ayaa calaacalku noqon doonaa ilaahu waqti yaroo dambe halaysiiyo hadduu markaa qofkuba yidhahdaan hadafku ka lumo qiimaha waqtigu uu ka lumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبا نعمة أي يشرب النبي قولي وضد بدن يكو كتسومي أكتود عن قيمة كيالا ومحي وعافماتك إيا فراغة عافماتك ما كانوا لنا هيوام حي معنيش dadka jooga dhakhtarka umniyadooda ugu weyn ma taqaana qofka dhakhtar ku jira waxa ugu weyn ee uu rajaynayo qofka dhakhtarka ku jira waa inuu marun kaco akbar umniya dadka inta haysataa ma ogti subax intaad soo kacday ma tidhi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saaka waan caafimaad qabaa mise waa daily life waa sidii dee routiinka ahayd aad rajaynaysay inaad subaxii iska soo kacdo durduriso oo meelaha marmatida soo noqotid already waad rajaynaysay wuxuu nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ugu waaweyn ee bini aadamku uu garan karay la'yay waxa weeyaan caafimaadka iyo waqtiga ninku markuu dhalinyarada yahayna waa labada ugu fiican oo haysto marka da'da la gaadho labaduba way lumaan daa markaad sii jirtaba caafimaadkaagu hoos buu sii socdaa isla markaa waqtigaaguna wuu sii yaraadayo waa lagula yeeshaa calaa'iqda iyo dadka kugu xidhan iyo mushkilaadkaad xalilisay ayaa badanaya markaa wax badan baana jaanis u helin laakiin ninku markuu dhalinyarada yahay labadaba keligii baa haystaa caafimaadkana inta badan mostly dhalinyaradu caafimaad qabtaa waqtigana waxbaba kuma xidhna isagaa maamusha waxa uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si aynu u fahamno waqtiga qiimihiisa ilaa markaasaynu idaarayn karnaa markaasaad garan kartaa maxaad ku qaban doontaa qiyaamaha marka la tago
su-aalaha ugu horeeya la isweydiinaya ilaahay hortiisa lagu joojinaya dhaqaaqi maysid su-aalaha inaad ka jawaabto mooyaane. su-aalo 5 ama 4 riwaayadka xadiidka waa ku soo arooray. waxaa lagu weydiinayaa cimrigaagii iyo waxaad ku bixisay. qiyaamaha ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid inaad su-aashaa ka jawaabtid mooyaane. maxaad ku qabatay cimrigaagii? waa mar labaad waxaa lagu weydiinayaa cimriga qayb ka mid ah. war dhallinyaronimadii sidaad u gashaa lagu weydiinaya waqtigaad dhallinyarada ahayd. mar saddexaad waxaa lagu weydiin xoolaha xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay. mar afraad waxaa lagu weydiin aqoontii maxaad ku qabatay. wixii rabbi ku baray waxaad aqoon heshay maxaad ku qabatay. su-aalaha kani waa su-aalo qof kasta oo aadama a sugaya in aakhiro la weydiiyo. 4 su-aalood markaa 2 ka midi waa cimriga. midi waa cimrigii oo dhan iyo noloshaadu maxay hadaf lahayd, maxaad qaban jirtay noloshii oo dhan. midna waa cimriga qayb ka mid oo ah qaybtii aada ugu caafimaadka iyo firaaqada badnayd. waa markaad dhallinyarada ahayd. waa qaybtii iyadoo labada nimcee dheeraadka uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. sida awgeed qofka muslimka ah mar kastoo cimriga laguu sii dheereeyabana xisaabtiisaa sii badanaysa. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum الnadiir faduuquu fama lidaalimiina min nasiir. ilahay wuxuu leeyahy awalam nucamirkum, war miyaananaydan cimri siinin mid waantooba inuu ku waantoobo baa ilahay yihi subxaana wa tacaala. nabiguna xadiidkii bukhaari wuxuu leeyahay acdar allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa balaga 60 sana. ilaahay waa u cudur daaray ninuu dib u dhigay oo ajashiisa dib looga dhigay ilaa 60 ka gaadhay. yacni 60 haddaad gaadho cudurdaarna xataa heli maysid baa la leeyahy. waxa uu nabigu ina baraya calayhi salaatu wasalaam markii laynoo sheegay qiimaha uu waqtigu leeyahay iyo su-aalaha qiyaamaha dambeeya iyo in wax lagugu xisaabayo uu yahay ayaa haddana wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida ugu fiican ee looga faa'iidaysan karo. nolosha qofku isku wada qura ma marto. nabigu wuxuu leeyahay 5 horteed ka faa'iidayso. waa maxay? dhallinyaronimadaada ka faa'iidaysa buu nabigu leeyahay intaanad gaboobin. marka qofku da' noqdo oo weynaado garaadkiisu wuu roon yahay, tajribo fiican oo nololeed buu leeyahay, laakiin awooddiisa soo yaraata. wuxuu qaban jiray ama uu awoodi jiray markuu dhallinyaradaha ma awoodo. nolosha waxay ka tahayba. sida awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam war intaad dhallinyaro tahay, intaad activity-ga leedahay, intaad caafimaad qabto, intaad waqtigaaga adigu leedahay aan cidi kula lahayn. markaad weynaato ee caruur yeelato ee xaas yeelato ee bulshada wax u qabato ee dadka ku xidhanto dad badan baa waqtiga kula leh. laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay isagaa waqtigiisa iska leh. hadduu boodboodayo iyo hadduu cayaarayo iyo hadduu 5 saacadood tv hor fadhiyayo iyo hadduu wax ku baranayaba he owns isagaa leh, cidi lama leh. saa awgeed buu nabigu leeyahay dhallinyaronimadaada ka faa'iidaysay intaanad gaboobin. caafimaadkaaga ka faa'iidaysay buu nabigu leeyahay intaanad bukoonin. qofku markuu gaboobo inta badan bukaan socod buu noqdaa inta ugu badan leh. dadku markay da' soo gaadhaan xanuunadu waa iskaga bilaabmaan. walow uu nool yahay waa bukaan socod. amaa qofku markuu caafimaadka qabo, markuu dhallinyarada yahay, markuu da-da yar yahay, waa xayawiya, waa wada nashaad, waa activity. maskax ahaan, jidh ahaan, caqli ahaan, meel walba waa caafimaad qabaa. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inta aanad xanuunsanin caafimaadka ka faa'iide. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaad waxhaysato ka faa'iidaysa intaanad faqrinin. bini aadamku markuu faqriga hiyay wuxuu is haddii maalku soo galo walahi sidaana waad yeeli lahayd, xaggaana waad bixin lahayd, sadaqaadkana waad dhiibi lahayd, dadkana waad xidhiidhin lahayd. markay laakiin soo gashaa uunbaa
laxajaalada ku badataa waayo sidaynu u kala maal badanaynu u kala baahi badanay asalka bini aadamku waa kaa faqiirka lagu sheegaya wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno iyo wuxuu cabiyo meelu saxrintaas u baahan yahay laakiin taajirku wuxuu u baahan yahay 20 mashruuc baa afka kala haya qof waliba jeebkiisa inta ku jira aqligiisuna uu ka fakeraa ninka 1000 shilin haysta mashaariicdiisu waa 10,000 wuxuu isleeyahay dad 10 isla hesho wax waliba dhag bay noqon lahayd ka 10,000 laahay 10,000 dollar markaad seeto mashruucagu waa 100,000 taadar haddaad milyan haysatana mashruucagu waa 100 milyan idan qofka bini aadamkii waxay dhahdaan hantidu uma kordhiso ghaninimo baahay u kordhisa al-ghaniy huwa Allah subhanahu wa ta'ala haddaba waxa nabigu inoo tilmaamay alayhi salaatu wasalaam marka wax ku soo galaan ee nooc min al-ghina hesho xaqii sare ka sii fakarina ghinada intaad haysato ka faa'iideyso intan ka janagal intan dadka wax ka tar intan wax ka qabo waxa kale uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam firaagaka qabla shughlik inta aad firaagatay qofka bini aadamka ay markuu sii koraa waxaynu leeyahay calaaqaadkeeda xiriirkiisa relationsku bulshada leeyahay tiran badata marka waqtiga xiriir ku noqda waqti uu shirku jiro waqti uu mid la hadlayo waqti uu isu maslaxayo waqti uu kan qabanayo qofku mashquul ayuu noqdaa laakiin waqtiyaa jira firaagu uu badan yahay nabigu wuxuu leeyahay marka inta aanad mashquulin ee firaaga tahay ka faa'iideyso ugu dambeynna nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin intaanad godka gelin nolosha ka faa'iiday taa macnaheedu waxay tahay waqtiga iyo chanceska iyo furaska inaad marnaba dayacin time managementka lagu sheegaya waa intaa waxa weeyaan furaska iyo awqaadaadu inaanay kaa dayacmin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay isagoo taa inoo tilmaamaya war haddii midkiin uu gacanta ku hayo fasiiladu waa geedka yara timirta marka la beerayo geed timiraada aad gacanta ku hayso oo qiyaamuhu uu dhacayo oo aad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud baa waxaa laga sheegaa inuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo aanan waxba kororsan oo ajashayduna gaabatay sidaan uga murugoodo waxaan uga murugoodo ma leh maalin kaa khasaartay murugo ma kugu haysaa waxaad saga aragtaa ummadda kolleyba berri cadceedda soo bixi maalinta kaa khasaarta ibnu mascuud wuxuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo cimrigaygii laga jaray oo aanan camal samayn waxba aanan kororsanin maalin igaga murugo badani ma jira buu tilmaamaya walidaalika baa culamadii hore muslimiintu gabayo tiro badan oo ay dhalinyaronimada ka tirinayaan waqtiga ka tirinayaan aada u tiro badan bay sheegaan ilaahayna wuxuuna leeyahay war habeenkan iyo maalintan iyo cadceedan iyo dayaxan iyo waxaan isu weydaariyey litaclamuu cadada asiniina walxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta inaad garataan inay nolosha wax kuugu kordhiso aakhire markaynu tagnayna waxaa laynoo sheegay qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin in layno odhan doono war adduunka imse sanadood baa joogteen qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin qaala in labithtum ila qaliila low anakum kuntum taclamuun afaxasibtum anama khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu almaliku alxaq ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala qiimaha waqtigu uu leeyahay saynu uga faa'iidaysan lahayn culamadu waxay odhan jireen markaa waxaad ku tala gashaa bay leeyahay haddaad rabto nolosha inaad ka faa'iidayso azuhdu fi lfuduul bay dhahdeen weligaa isku day bay dhahdeen dheeraadka inaad ka zaahido dheeraadku waa maxay aragtida dheeraadka iska dah inta aanad u baahnayn daadaawashadeeda iska daa bay dhahdaan maqalka inta aanad u baahnayn dhaaf hadalka inta aanad u baahnayn ka tag dad dhexgalka inta aanad u baahnayn ka tag hurdada inta aanad u baahnayn ka tag noloshoo dhan inta aanad u baahnayn internetka inta aanad u baahnayn ka tag imisa waqti idiin baaqi noqon lahaa baad u malaynaysaa bahalkan layna raaciyey
suuqa markaad marayso iyo guriga markaad joogto iyo mar kastaba waad furaysaa Facebook gal kan gal wargal maxaad ka haysaa maxaa kaa soo raacay mise saacadooda TV daawataa wad malaynaysa keena ugu yaro wuxuu yidhaahdaa almost bal warka saarada laba gooroo wara buu dhegaystaa ka ugu yare laba gooroo warana waxaa laga yaabaa 2 nus saac inay kaa qaato su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan haddaad maalintii 3 saacadood daawato 10 sannadood ood 3 saacadood jaamacad tagaysay mise degree baad qaadan lahayd daily 3 hours aad tagayso mise degree baad qaadan lahayd mise credit hour weeyaan courses ka qaadataan wixii noo dhan markaa isku dartaan 160 credit hour 180 meelahaas ku qalin jabisaan Soomaa mise saacadood weeyaan inta TV-ga daawato iyo intaad waxbarashada tagto ma isdhinac dhigtay nimankan dibida u eega surwaalka gaaban loo xidhay boodbooda intaad daawataan nimankan cududaa kuuskuusan leh la yidhaahdo harag la neefeeyey bay dabada keerayaan labada birood ninka dhex geliyay baa fiicnaadayna sacan ka maa that's the logic wax kaloo ka dambeeya maad garanaysaa wax kaloo ka dambeeya ma jiro kan gartay muruqyadaaba uu kuusmayay eriyayo lacagna uu helayaa aduu maxaad helaysaa nothing exercise maaha adigu iyo haddaad dabada boodboodaan dhaami lahayd oo adigu ma boodboodaysid waktigaaga wuu dhimanayaa 2 birood baa caag dhex marayna aakhiriya adduuntoona wax kama taro waxaaba laga yaabaa in dhalinyaradu iskuba disho Manchester baa badinaysa iyo City baa badinaysa laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay time management-ka la sheegaya waxa weeyaan waa fuduulka ka tag dheeraadka ka tag hurdada inaanad u baahnayn sariirta isku nabin intay naftu u baahantay seexi laakiin inaanad u baahnayn Soomaaligu raaxada muxuu yaqaanaa markaad fasax hesho maxaad samaysaa khurada badisan Soomaa kaana ma cimrigaaga aanay ka tirsanayn qoladan gaaleed ee buuraha fuushaaba la qaato muruqyada dhisanaya fasaxooda buurta fuule waa khawaar ruuxiya haya iyagana waxay buurtan u fuulayaan xataa hurdadaan ka imanaynin psychologically bay bukaan marka inuu ismashquuliyo physically inuu daalaabuu doonayaa si uu mentally u nasan karo